marka koowaad aad baa u mahadsantihiin kulay jaacadi baad joogtaan waa meel aqooneed idinkuna aqoon in badan baa ka hadasheen rag waaweyn oo sugaanta in badan ku soo jirina waa taagan yihiin meesha way joogaan kulay halkan imika ma dhaweyto forum baa ka furmay shir loo raray meel kale oo training oo computerada iyo qaabkan technology-ga loo galo ayay ma dhaweyto halkan ka furray jaacada kulay waa lagu dhigaa af Soomaaliga mala kulliyad aan af Soomaaliga lagu dhigin ma jirto jaacada gudaheeda 11 kulliyood bay ka koobanto 11 kulliyoodba af Soomaaliga waa lagu dhigaa suugaana waa lagu dhigaa rag waaweyn oo suugaanta caan ku ahaana way joogaan Allah u naxariistay gaariye maxamed xaashi dhamac gaariye ayaa joogo ka dhigayay hadraawi rag badan way joogaan iyo rag badan oo ardaydii ay soo saareen way joogaan marka kulli waa loo baahan yahay aqoontiina waxa jira inay igu soo korodhay oo maanta la sheegay kaliya in ayadana ay jiro in cilmi baadhis af Soomaaliga si tabar go'aya marka imka dad dhalinyaradan jaacada joogta ee qaar graduate qarinay qaar post graduate qaar master shahaada labaad maraya af Soomaaliga kala hadasho ama waxyaabaha qaar kood oo yar oo kooban ka hadasho ba garanayaan marka Soomaaliga saasuu si tabar go'aya marka Soomaaliga hadaan la kobcin oo ereyadiisa aan horumarin oo aan cilmi baadhis ugu sameeynin oo la qorin waxa qoran maanta lagu kala tagay oo la gelinin waxyaabahan maanta la isticmaalayo technology-ga la gelinin nimba ku sameeyay computer-ka badhaweyto jaacada wax ka dhiga wasiirnimada loo magacaabay Cabdiraxmaan Guru Barwaaqo ayaa wuxuu baariyay xataa bal waxaan net-ka imka waatan leeyahay net marka networking ayuu timaamay lahaa mareegi waxa aynu bixino ereyo badan boolan ku soo bandhigay oo ereyadii Soomaaliga hay'ad la raadsan ee dhabtahay waayo qolo waliba waxeedii afkeeday badan haddana ku salaysan markuu technology socdo haddii wax yar maanta soo baxaan chipsin baasha yar imka meesha ku samaysan waa chipsin laakiin chipsin taas waxay ka koobantay waxa weeyaan waa nuurad yareeda dhulka laga guri jiray ay ka koobantay tabaashiirtii waxaan ka sameyn jiray ayaa waxaan laga sameeyay aqliga bini'aadamka ayaa gaaray inuu heerka ka sameeyo waxaan imka saaran ma saqafkii baalka laakiin waxaanay ka samaysantay laakiin haddana waa in ereyga af Soomaaliga ay tahay ee la socday oo de qofkii bini'aadamka uu ku fahmayay oo markii xisaabta iyo waxaan la turjumay berigii ogaanaysa dhigaha iyo loolka iyo xariiqda ogaanaysa kulmis iyo waxa la turjumay iyo islagadooda jiray de qofku uu soo dhawaanaysay baalkii marka dad badan baa beriga fahmi kari waayay markii Ingiriis lagu dhigay fahmi kari waayo safaliyuri ay sid bangaray waqti la fahmi karo safaliyuri ay sid maxayt waaba la fahmo marka af Soomaali deen turjumaad loo sameeyo kulli kuwaas arinta imika u socota prof ku socdana professor Maxamed Yuusuf jaacadana Al-Ayn la yiraahdo ee ku taala Imaaraadka wax ka dhiga waana dadkii markii hore af Soomaali ku baray marka wuxuu baaray bal inuu af Soomaaliga research ama baaritaan cilmi inta laga sameeyo la dhigo oo dadka carruurtii marka dambe loo dhigo la generation inta uu socdo waa inta kulli qolo kale way sugaysay ama ka qaybgalkiina iyo waxa ku soo dartaan ku kordhisana wax badan baa aqoonta ku taraya aqoonta wax badan buu taraya shirkuna way noo furan yahay hada laga bilaabo halkan marka aan fikradeed ka siino ardayda marka aan baraarujinayno wadaniyada waan ku baraarujinaa halgankii iyo xornimada dalkan maanta iyo nabadda aynu ku fadhino iyo quruxda habka ay ku timid waanu u sheegnaa sababtu waxa weeyaan maxaan ku raadayay waa iyaga iyo telefoonkan la salaaxo amba la iska arko ayaa mar wada yimid marka fikrad kama haystaan fara badan carruurta de guriga wax loogu sheegaa gurigiina Facebook iyo waxba lagu wada mashquul yahay dadku inta badan ma wada hadlayaan reerdano guriga soo wada hoydo aan hadal badanaba dhex marin baa jira marka waan ku baraarujinaa runtii anu inta aan ka garanayo waxaan ka soo bilaabaa 19 February 54 de may maqal February 28 ma garanayaan wixii dhacay marka in 1954
markii weerka cad la xidhay maalintaas hees baa laga soo diray cadan waxaa qaadi jiray cabdilaahi qarshe garan maayaan markaa macaa heestii waa inaad ku luuqaysaa markaad iyaga wax u sheegayso wiilooy warsamaa kuwa heshanaye adna weer cad soo xidha ayay ahayd waxa kale oo dabeetana ka dambeeyey halgankii gobonnimada halkaa iyo in yaroo ka horreysay ayuu ka bilowday markaa abwaanin cadan iyo ilaa qaahiro dad kala jooga ayaa bilaabay markii hore markan dambana 1961 markii aanu indhaha kala qaadnay aynu aragnay xaaladu siday u socdaan inqilaabku waa kii fashilmay markaana waa markii aad soo saarteen heesihii maxaan ku raadayay waddankayga wanaagsan inaan soo walwaalo heestii taasina waa jirtay waxaa jirtay oo kale heestii kale ee roobka qowqowlo qarqaray qaawanaanteedu oo arkadee qudhayda xaggeen dhiga waxyaabahaas taariikhda caynkaas halgan wel oo dalkani soo galaba abwaanaa bilaabay muxuu ahaa ilaa kii hubaysnaa markaanu soo gaadhno sheekadu way isbedeshaayo waxaanu uga soo qabanaa markii halkan burjeex loo soo daatay iyo taliska ee dhalinyarada iyaga laaleegay ay ordayeen iyagoo aan rasaas badan ba haysanin oo saddex xabasita laakiin u wada socdo curado iyo madi iyo walaalo iskarab ordaya ay ahaayeen mishinkooduna waxaa dhamacdii ku soo dhacaysay inay afka qabsadaan oo aamusiyaan halkaa markaan soo galo haddana booramaanu geynaa booramana geesigii gogosha dhigay ee yidhi halkan aynu ku wada hadlaynaa ee ay ka bilaabantay the making of a nation sida dal loo dhiso waxaanu haddana geynaa laascaanood oo nabad qaadatay oo garatay inay iskuulla yeeshaan inay dhakhtara yeeshaan inay wadooyin yeeshaan inay waxbarasho timaado inay nabadi jirto in biyo la helo markaa sidaasaan u baraarujinaa laakiin inta idinku baraarujin lahaydeen iyo waxa sheegi lahaydeen annagu ma sheegi karno way nagu yartay markaa idinkaa jiray oo soo joogay jaamacaddu waa idiin furantay ardayda ayaanu idin hor keeni karnaa imikana professor aqra ayaa maxamed yuusuf ayaan ku wareejinayaa idinka taan idinku yeedhay waxa weeye waxa la yidhi halkan haddii aynu iminka in yar eegna waxaa lagu qiyaasaa iminka caalamka inta afee lagaga hadlo waa 6,000 ayaa iminka lagu hadlaa waxaa la yidhi 100 sano gudahood 90% way lumayaan waxa ka soo haraya 10% suuqdiya ayaa soo haraya 600 keliya ayaa ka soo haraya meesha 6,000 ee af ee lagu hadlo waxa ka soo haraya 600 90% way lumeen 10% baa soo haraya 10 ka soo harayaana suuqdi bay noqonayaan bal ila asalkii ma noqonaya luqada carabiga oo kale quraankii baa ilaahay ku ilaaliyo way joogaysaa marka anigu haddii la eego waxaan idin sheegayaa sababta aniga igu kaliftay inaan arrintan sameeyo waxa weeye oo af weeyaan problem malo grammar log okay marka arrinta meesha taagani waxa weeye taala anigu gabayada iyo heesaha iyo fanka iyo ka hadli maayo sababtoo ah waxa u aas-aasa kelmadda hadday kelmadihii lumaan oo wax kala bedelo ama sidii loogu hadlayay khaldanto markaa gabaygiina dee ma jirayo suugaantiina ma jirayso anigu markaa kuwa ka hadli maayo waxa la yidhi Soomaalidu carraday ku nooshay 12 af baa lagaga hadlaa qaarna 13 bay yidhaahaan waxa jira af Soomaalidu carradeeda lagaga hadlo oo imika 59 oday oo quri ku hadlaan cid kale aanay aqoonin 59 kaasu markay socdaan afkaasi wuu tagay marka waxa weeye inagu waynu yaabaynaa marka la yiraahdo 13 af baa wadanka laga hadlaa af Soomaali baynu naqaanay arrinta marka meesha ku jirta waxa weeye 5 kamida iyaga imika dabargo ayaan baa leeyahay 5 kamida idinku afka way gaga wanaagsantii 5taana waa garanaysaa 5taasi waxa weeye afboon
boonta afkeeda markii 2000 la eegay laba wuxuunba u hadhay baa la yidhi 59 qof waa 2000 iminkana waa laga yaabaa inay yari ka hadashay ay ka hadhay waxa jira af mesela Ethiopia lagaga hadlo oo markii la eegay 7 quri ku hadashay 7 qof oo quri 7 markii dhimantana afkaas uu tagay baraawiiskii afka reer baraawa kamida kuwa iminka khatarta ku jira baajuuniga kamida afgaraha kamida mushanguuliga kamida aftooniga shantaas soo Soomaalida arada degta laga hadlaa iyagu way tagayaan baa la yiri iminka haddaynu markaa inagu afartaa ka tagno in kuwa ka dhaqaaqno afkeeni laba meelood ayay ciladaha ugu waaweyn kaga dhacayaan meel waa la daweyn karayaa sidaan qabo hadii يعني مدة كبعد والله فرسمين كرا لكن واحد شرته مال عن وحبلا لقى قبل كرين أنا قلنا عن إيه ورقي وويناي كرناي إنتاني الصعون أرنتها هلا جا تبتقو لبعض مالاد وعفكو كده من يا وحوي كلمة دي إن اللومان كلمة دي ومثلا نيمك كلمة دول بقى أما كلمة بدشة ما يسكبتك طبعا وحكرات شراء السجنة تركيب كي كلمة سيدي اللي يسوق الدراعي iyo naxwaheedii inuu lumo oo imika markaad eegto caruurta iyo waxay afka ku hadlaan ragyaal kamaradayaal dayuuradayaal dhagaxyaal ciryaal dhulyaal aynamayaal sidaasuu horta isu bedelay idinka markaa taan doonayay inaynu wajahno waxa weeye kelmadihii waar kelmadihii anigaygani qaar badan oo aan garanayn baa imika de maba odhanaya qaar badan ninbay maalin dhaweeytay ima wuxuu mulac ma taqaanaa inta noocuuyi 13 magac oo mulac abu ii sheegay ka noocaas kaas la yiraahdo ka nooc weel anu mulac un baan aqaan weligayba marka waxa weeye taas wata arinta marka aynu inagu imika isugu nimi aan doonayo inaynu ka hadalno waxa weeye afka Soomaaligu marka la eego waati la yiri waa la qoray xuruuf baa loo sameeyay حروف تاسو مدما تانا يدكنا وأكتين أنا قلنا وأنه أجنى إن حروف تاف صومال قانا يدمين لكن وهم ينكو حساب تماما أنت إنه هينو واحد شربا ليلي كوب يلا واتن كشبنا هالكاكو قرن أينو أركينو ليلا شبنا يال إيو شغلة ذا طبنا أنت هساكو قرن أنت يمك عفك لقو قراوتها صومالك أنت بدن أما والله بحرف أما هو صدح أما هو أفر أما هو شن أما هو لح كوا وجو بدن واتطوع أياد هتان أنا كلمته اسمه بدنا أسل كده مركل هرت تيرده دو أفر بقول يلا باتن أفر بقول يلا باتن كلمته دو بقى لقى سماين كرا مدنا ما ديران كرا مدنا ما يران كرا وأفر بقول يلا باتن أنت لقى سماين كرا لبا حرف إمسا إنه استعمال الله أو أفكين أمركي أنا قاقون تيدي أنا تجي waxay noqotay 27 ayaa af Soomaaliga intaan anigu aqaanay ku jirta idinka markaa waxaan idinku yeeray war 400 iyo 70 420 anigu 27 un baan af Soomaali u aqaanaay de idinka joogo adduunyadana si ay noqon doonto mooyeen iminka la idinka reeba idinka kuwa kale ee meesha ku jireen ka tagay aniga laftayda ee idinku garanaysaa marka mesela ab iyo ib iyo ah iyo ar iyo ur iyo us iyo ish waxa uu aniga qoray anu 27 baa aniga noqdeen waana 420 kani gebigood laba cisha lagu koobi karaa hadii seminar la qabto oo sheegi kartaan mid waliba macnaha ay leedahay dabad waa la ururinaya waa la qoraya intaas marka aniga qaar waa tilmaan qaarna waa adigu Soomaalidu afkeeda waxay ku isticmaashaan 7 kelmadood kaliya bay noqdeen waana 420 مالك اللي أنا واللوجان كرا أنت إنه استعمالية أنت كلا. Soomaaliga 500 oo sanadood oo aanu qoray ayaa la hayay oo la ilaashanay oo aanu lumin waxa iga daadegila maanta oo dictionary-yada u sameeyeen oo af Soomaaliga qorteen oo dhan walba ugu qabaydeen oo wax alla waxa abwaan Soomaaliland joogiyo waxa Soomaaliya jooga nin waliba buugidii ka tagay nima baad ka daba goynay wallahi yaabanaanu ya horta u kaadadano horta anu waxa idinka daba goynaya ee ka sii baqanaysan ma af Soomaaliya khaldo iyo kelmaadka ay ka sheegaysan oo kale wala toosi kara waxa leeyahay dawad ma jirto ragyaal iyo inama ya hadalayaal dama jiraan waa hadal iyo waa inabo af Soomaaliga toosinta qofka qalluucinaya waa laga toosi karaa
wacyigelin waa la samayn karaa laakiin af soomaali dabargo'aya muxuu dabargo'aa waxa baanu idiin samaynay nin kastoo abwaana wax alla wuxuu mahmahayay wuxuu gabahayay way idiin qorayin kow halkana jaamacadii baa ka gaadheenba waa 500 oo sanadood iyo ba'tooda la qorin baa lagu lumi waayay waxa idinka luminaya haddii xooluhu ay lumi waayeen markay dabada joogaan daaqayaan iyagoo xeer kugu jiray iga lumayaan hadda baqa uu tiro wallahi wuu cararaya wallahi wuu iga lumaya hadda uu ku xariisan yahay ba geeli hadda waxa weeye hadda taasi faaleeyay idinku bal anu kelmadaas iga dhaalicile si faaleeyay salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh runtii ma midi way jirtaa waa dhab af Soomaaligu wuxuu ku dabargo'i karaa waxan la qorayo waxa dadkii akhrisan lahaa hadday dad isbedelan yihiin oo dadkeedii aanay ahayn oo aan jiilkan maanta kacaya dad u jeedaba ku ahayn dad isbedeli karaa oo dabargo'i karaa ha ila dadkii ma hadadkii مثلا Soomaaligu de maqalay warway ma lagu warramay in Umar la dilay oo Ali la dilay inuu dhiig warga inuu dhiig qulqulay waa goorma maxaa islaanta Soomaaliyeed in Ali la dilay Sayyid Ali iyo Umar iyo la dilay waa wax ka horeeyay ya ha inuu dhiig inuu wada dhul galay inuu dhiig qulqulay waxa weeye waa la sarifay waa kelmad la sarifay laakiin de waqtiga ku saabsanay marka waxa weeyaan af Soomaaligu way jirtaan ku abwaanintu de way heli karaan waana hayaan kumanaan eray oo la isticmaali jiray laakiin imka aan la isticmaalin way hayaan waana heli karaan waa xaqiiqa wada magacyalaha oo magacyo soo jireen aha laakiin hadda dii aan jirin way hayaan abwaanintu wax badan bay siirkii dabada sii hayaan laakiin waxa weeyaan de iqra waxa weeye mushkiladda ugu daran waxa weeye war dadkii horta waxaan lahaa diyaar mooye ya dadkii waxaan lahaa diyaar mooyihiin in wax looga tago haddaad eegto luqadda qibdiga haddaad eegto ereyga hangool 4,000 oo sano ka hor ayuu qoraa waxaana la yidhi waa hanka gooshuu leeyahay hanka goosha hanka goosha lahaa gooshku waad soo qabata gabaygeena waad ogtihiin hoobaalay hoobe hoobal wuxuu ahaa hubal buu ahaa sanam yaale kabcadu ahaa dadka af Soomaaliga ku hadla iyo dad kale ilmanimo nuuxa ayuu ahaa waxay caabudaan hubal buu ahaa afka Carabiga kabcada ku nabigu ka burburiyay sallallahu alayhi wasallam taas waa wax la taaban karo way ya halkaas kaga hadla waa ereynta liha waa codku ka bilaabma afku codad la isu geeyay baana erey sameeyo codad la isu geeyay ayaa erey sameeyo erey la isu geeyana weer bay sameeyaan marka afkuna laba cilmi buu leeyahay mid wax la phonology mid wax la morphology kan hadda inoo bilaabay waa kii codaynta inuu sii wadana waan jecelahay oo waliba waa bilowe uu sii gaaray ilaa silkiisa xaggan afku uu dhimanayaa iyo uu noolaanayaa iyo waa ka af kasto adduunka ويسبدلها حتى كوا أفبك تاجني أنا هذا اللي هم الانتياشة هذا إنجليزي كسوقات صدق في إنجليزي بتشرا وأنا اللي سكوا أفكر واحد الإنجليزي دي هو أولد إنجليش واحد شرا إنجليزي ده ميديفيال إنجليش يو كونتمبراري إنجليش وأتنا هذا شوكته أنت إنجليزي تغنى تسالو سيا دو آرت وأفكر هلا معناه هذا وحوي يو آر ما أنت إنك كيرت كنت هذا دو آرت ما كرنا يوم ويدي متى waxa socda UR laakiin qoraalkii bariga uu qoray ragii daadaha way ugu qoranta inaga waxa la inaga rabaa inaynu haysano wixii aynu maanta hayno wixii tagayayna aynu ku soo daro ida hadda erey baan ka helaa hadda anigu markaan barnaamijyada ka baxo ilaaho oo ilaaha dhageystayaal weeye dad badan meel hadlo maxaad loo jeeday weeyeen ma way maqalba inay salaanahayd inay salaan Soomaaliland isku salaami jirtay ay ahayd mabay maqalba kula yaabi maayo oo aan badareenka ma inaan garanay waan ku dareensiinay wada taas waa tano cilmigan rag ka horreeyay way bilaabeen adiguna ku mahadsan tahay annaguna erayada aad hadba hayso haddaad noo dhiibto wixii Soomaaliland ka garanay waan sheegi afafka aad qaybinayseen mid baad isku duubta
maaha afka boontalmeedo waxa ugu qaalisan afka gibraha gibruhu afgaariyiin oo qaaliya ku darso gabooyina afgaariyiin waa musadariye iyo madhibaan afgaariyiin hadday maqalban way dabargo ayaan idhigiso tumaaluna afgaariyiin saddexdaa afba may lixdana kuma hadlaane dhowr kun oo qof baa ku hadla anaa kuwa hayaan ku hargeysa iyo ku wada gabiya go'ile waana seebgeliyo waa la ururinayaana rag kale idinka ka midana waan wada wadnaa oo ka mid yahay hadda wasiirka iyo warfaafinta wamaandu teel soo hadal qaado ilaa in lafafka la revive aan dib soo ururino marka waxa weeyaan ma aqoonta ee Soomaaliga grammarkiisa mise erebixintiisa iyo hadaladiisa Soomaaliga grammarkiisa adiga iyo inta ka aqoon badan baa laga rabaa odayaasha waxa laga rabaa erayada halka ku qoran kala soo cidooda Soomaaliga dawa soo jiray oo daaweyn qoraalkiisu laakiin uu dhawaa debar dhawaa la qoray anigu waxaan qabaa qoraalkii af Soomaaliga oo aan dhameystirin min ayaa wixii naga jiraan waxaan halka ku hayaa hees abwaanadiinu aad tiriseen oo kolkii af Soomaaliga la qoray uun ahayd ayaa wuxuu lahaa abwaanku guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaadhaan 42 gamuuman waa 42 xaraf af Soomaaligu intu ka kooban yahay buu si kala guro 30 laba garab hoo gaarsi dadkeena buu kolka inta ina soo gaadhay waa laba af Soomaaligu kolkay u fariisteen guddigii qoraysay af Soomaaliga 42 xaraf bay keeneen 42 xaraf ay keeneen waxay yiraahdeen 32 dadka sii gaarsi 32 dadka sii gaarsi 32 waxay ahaayeen 32 halka uu inoogu bilaabay iminka professorku 22 shibana ah 10 shaqale shanina gaabantay shanina ay dheertay waa 22 halkaasi hamzada raacisay waa 22 gaab 10 baa maqan oo 10 xaraf oo af Soomaaligu ka kooban yahay oo aan isla 10ka in la doono oo halka laga bilaabayo af Soomaaliga laga baadi doonaya ay noqoto 10ka halka lagu sheegay ee aan ina soo gaarin 32 baa leena soo gaarsiiyay su'aalaha halkan jooga badankooda way ka jawaabayaan halka waxaan oran lahaa war 10ka xaraf ee maqan ee abwaanku yiri guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman si kala guro 30 laba garab hoo gaarsi dadkeena ayay ku gaadin oo yaanay ku gaadin shaqalada kulku isu geeyay 22 buur iyo shibana iyo hamzada iyo 30 iyo 10ka shaqale intaas u dheertay 10ka aan baadi doona baan oran lahaa professor waxay noo dhameystirayaan gaab iminka ina haysta waxa anigu badan oran maayo salaam alaykum waxa yara tixraacaya 10kii inay xaraf ay tiri way maqan yihiin waxa kamida berigii af Soomaaliga la qoray annagu aanu dhalinyarada ahayn waxa la oran jiray af Soomaaliga waxba ka maqan waxa weey waxa la yiri ninkii haystay militariga Muqdisho ee Soomaaliya oo dhan ayaa wuxuu soo diray telegram buu Hargeysa u soo diray wuxuu yiri diyaaradaha Hargeysa haduulaan ayuu soo qoray halkan markii ninkii Hargeysa joogay oo akhristay wuxuu akhriyay diyaaradaha Hargeysa haduulaan debeetana laba diyaaradood ma kaco jigjigay tuqaysay xabashiga Soomaaliya isla sibaaliir dambiga yaale dambiga waxa la af Soomaaliga oo haduulaan iyo haduulaan af Carabiga waa deel iyo ta Soomaalida imika hawada daruur bay oranayaan waa ta daruur lama oranayo sanka marka dul leeday dul waa deel dul wala ka dul saar marka leedayna waa ta marka kelmadaha ka maqan af Soomaaliga waa saas oo kala ayaa kamid ah anu dhinac waxaan ka eegay saxaafadda nin suxufiyaan ahay television baan u qaabilsanay barnaamijka la aqoon maal ana ka mas'uula marka mushkilado badan ayaan la kulmay
mushkiladaha badan waxaa ka mid ah annagu waxaan ka soo xigaynaa wararka warbaahinta kale waanu sheegnaa warbaahintii iminka waxay gaadhay mararka qaarkood inaan wararka qaar aan waxba ka qaadan karinba sababtoo ah shirkaddu waa shirkad isgaarsiineed inta badan waxay ku dadaashaa inay dalka ay ka shaqayso raali geliso marka waxaad arkaysaa dhalinyartii wax qoraysay oo isticmaalaysa eriyo badan oo dhul fog laga isticmaalo marka aanu waxaan halkan usoo istaagay berigii hore waa kii dhegin ugu lahaa 500 kun oo sanadood 500 sanadood bulsama ayuu af Soomaaliga aanu dhiman sababta keentay inaanu Soomaaligu dhiman waxa weeyaan beriga mediumka ama meesha la marin jiray af Soomaaliga waxay ahayd suugaantii abwaanada idinka gacanta ku hayay laakiin imika wuxuu maraa macallin la yiraahdo saxaafadiina waa kuwa la sheegay Maxamed Yuusuf sheegay laga oranayo awriyaal aanay si fiican u isticmaalin oo aanay luqadda baran u dhimanaya sababtoo ah macallinka guriga iyo guud ahaan qarankaba رسولك ومهسي هاي وانا وحنا نقول رسول ما كود هذيك مسكحة هذيك سو ودي ما تمن هردكت أفصل يقولوا قبيلة هينا ورا الكسر والودوقنا هاي هالكاو دكيري ولمي واي وحكلمي واي أنا سلا هاي قرابين هاي ومد هالكلمي واي وحوي إنه بدي كوري سيبا أفك هاي ستي markii baadiin laga yimid ee laga soo wada noqdayna afkii uu baabaaya bar magacii uu baabaayaan oo de waxa la wixii magacaha ee iskale jiray uu iyo ku hadalkiisiba marka koow halku afku markii hore kalumi waay maantana kalumaya koow war islaayanu waxa weeyaan guuraagi baa dadkii lahaaba de haysado sidii xoolaha u dhaqayaan ayuu dhaqanayeen u haysteen laakiin markii baadii laga yimid carabi iyo hindi iyo talyaani iyo awriyaal iyo naagayaal meeshii noqotay wixii way baabeen koowan waxa la halku markii hore ka noolaa afku maantana ka dhimanaya koow halkaas waxa laba hooyaale muxuu ahaa hoobal anu waxaan u haystaa hiilyaale hooyaale inay hayd markuu gabayaayo hiilyaale hooyaale inuu ahaa waayo kelmaad badan oo sida ahayn si kale loo yiraahdo yaryar in alla inta kubadda ciyaarayso dhan walada yaqaan magacyadiisa way u abtirinayaan Soomaaliga deeyna ku qasamnay way inay bartaan way waynu isla wada garanay abkii inuu gurmad u baahan yahay odayga inoo keenay macallinkuna aad iyo aad buu u mahadsan yahay inuu dabargo-ayo qolada rumaysan oo maanta wax noqonayana qolada rumaysan baan ka mid ah ab Soomaaligii anigoo jaamacad halkaana tago bardhowta wax ka ayaa khajiri jiray markaan soo hortaago dee 2,000 oo dhakhtar iyo injineer iyo jaamacadan markii waa khajiri jiray ishadii dambe show anigaaba jecel yahay yaryarku ishadii dambe ayuu ninkii dhiigka ahaa gudoomiye hadlay wuxuu damaanta Muuse Carif uu leeyahay ciidama maqraata maalinta kala bar baa maqraada markaas aana soo jeertaysa fuufan nin barka dhacday ismooday haddaba abkanina warigii wuu jiray adeero nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay Soomaali joogay fiiq baa la ilaaba gabiyay inuu hadda nabigi soo baxay buu sheegayaa wuxuu yidhi sanadka sabaka la joogiyo ilaa saaxay nabi Muuse sanan laguma caabudin arada seeraha amudug maantana mid sumadii ku tar suxuftu sheegaysa gabay uu qoray oo waa soo qoray barigaas oo walba ay kaas ya adeega iyo biriso labada magac uu haysata ee layda islaanta baradeen inaan kale leeyahay waa biriso ama waa adeega islaantuna hadda inaan kale leeyahay waa nageeya ama waa dabshid ama waa dugsiye magacyadu ilaa magacyada hore تعرف كذا في الدين إلى هرمين ليس كلا بحجرها يستطيع إلا صدق كنا مقعون مال كوريين بدو بعلمه والله يكون فرديا وأيوه عراق يعرشوا يعرها يصدق لا صدق علمك وكلا فرديا هذا هو حنوبة هذا الجوع كنا رضر على هذا برجع بسوارك هذا مبوها وحن إنجليز هذا يا عربي هذا يا وحنا إنه براني أي هرتعبك عجيني كليه ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Iqra mar labaad waxaan u mahadnaqayaa abwaanada qaranka
qiimaha badan halkan ku sugan dhammaantiinba waa mahadsantiin Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hadal nin badiyay muu wada oran nin yareeyna kama kala tagin maanta waxaynu isugu nimi inaynu isxasuusino ummadeenu afkii iyo hidihii ay lahayd halka ay ka taagan tahay horta haddaynu imika horteena eegno board baa yaala af ingiriisi baa ku qoran haddaynu xaggan dambe eegno board baa yaala af ingiriisi baa ku qoran baahi alla baahi aynu u qabnaa ma jirto erayadan shisheeye ee horteena ku qoran waayo inagu ingiriis ma nihin reer Somaliland baynu nahay yaa akhriyaya taas waa dhibaato anigu sidaan u arko haddii la doonayo afka in la soo nooleeyo oo ummadda hidaheedii iyo dhaqankeedii la kaydiyo cidda mas'uulka u ahay waa cidda waddanka hogaaminaysa waa kow haddaad eegto gaadiidkeena dawladda af ingiriis baa ku qoran laba xaraf baa ku qoran oo loo soo gaabiyey laba erey oo shisheeye oo kala ah government transport ayaa ku qoran horta gaadi waa bayna sii qoranto iyada gaadiidkeenu ka dhiganaynaa laakiin taada waa in la bedelaa waa in laga dhigaa gaadiidka dawladda uu ahaan jiray laakiin ma maaha taas waa mid anuntaa ku dheeraanayn anu 11 sanadood baan dhigayay afkan waxyaabo badan baan runtii la kulmay haddaad ogaato da'yarta wax baranaysa halkay ka taagan tahay af Soomaaliga waxa aad qiraysaa ereyadii waanada ahaa ee uu inoo soo jeediyey aqoon-yahan Maxamed Yuusuf Iqra waxaad ogaanaysaa afkani inuu isbedeli doono oo uu dabar go'i doono sida rag badan aaminsan yihiin dhammaantood waxay adeegsanayaan markay wada hadlayaan waa ereyo af Ingiriisiya iyo ereyo aan badnayn oo xiriiriye ah oo af Soomaaliya tusaale ahaan jaamacaddan Hargeysa oo arday iska raacnay aan macallin u ahaa gaadhibaan wada fuulay way sheekaysteen in muddo ah mid baa wuxuu yiri cali waa selfish aada inuu komanka inaga bixiyo may ahayn mid kale wuxuu yiri gabadha aynu rufiyo garaynay wuxuu ka soo qaatay inuu kalaanku yahay foilanis mid kale wuxuu yiri ideaska aynu soo jeedinay hadday bit by bit u fahmi lahaayeen horta halkaas la maraya sida aan aaminsanahay anigu afkani waa afkii hooyo af Soomaaliga waxaynu u naqaanaa afkii hooyo haddii uu dabar go'ayo halka uu ka dheeliyo halka hooyada maanta ma jirto hooyo ilmaheeda u heestaa ama sheeka xiriirooyin uga sheekaysa ama heesii carruurtu lahayd uga sheekaysa ma jirto marka waxaan ku soo gaabin lahaa afku wuxuu u baahan yahay hiil wuxuu u baahan yahay intan in ka badan in la isweydiiyo oo laga tashado mas'uuliyaddaana waxa leh kow madaxda qarankan hogaaminaysa waana masalaamantiina maantiinba waynu soo gabagabaysanaynaa laakiin dardaarankeenu waxa weeye waxa jira waxa la yiraahdo hawiyadu waxa weeyaan qofkaas wuxuu yahay marka la yiraahdo maxaa tahay waa wuxuu sheegto marka sumadiisa marka inaga sumadeenu haddaynu dib ugu noqono laba sumadood un baynu leenahay sumada yani ayaa ugu muhiimsan mid waa diinta midna waxa weeyaan afkeena aynu ku hadlaynaa af Soomaaliga ugu weyn marka anugu taanimika kulleeyda culayska aynu saarna saan idin sheegay waa kelmadii af Soomaaliga kelmadaha af Soomaaliga iyo runtii diintii marka la eego carabidii way dhisan tahay laakiin in kasto aanay imika aad mooday lafteedii ducfeenu ku soo dhacayo da Ingiriisigaas meel walba bedeshay laakiin labadaas ayaa inoo ahaa inaga aasaas bal marka waxaan idinku yeeray anigu iyo maanta aynu arintaynu ka hadalnaayahay bal kan af Soomaaliga ah ee kelmadihii lumayaan af Soomaaliguna sababtu muhiim u yahay waxa weeye Soomaalida dadkan ummadda Soomaalida carrada Soomaalidu degto ku nool Soomaalida ayuu isku xidhaya haddii marka uu kaasu lumo waxa weeyaan wax kala meesha ka soo baxaya taas ay nagu kaliftay inuu af kale bedelo dabadeedna aynu marka halka khasaare ka dhaco marka sidaasaynu ku soo gabagabaysanaa insha Allah waanaynu xidhiidhkana insha Allah waxaynu taageerin doonaa inuu jiro de ha laguna fakiro mas'uuliyaddeeda ha lagu shaqeeyo
هدنا أهجرنا ونهول الله فرقنا نورنا كلوطنا قبضنا وهدنا تبوينا هنوننا هبنا ونا جندا وهدنا تبوينا